waxaan nin taksiila ilaa 2006 ilaa maanta waxaan ku shaqeystaa shaqada taksiga waxaan soo baxaa 5 barka subaxnimo waxaana shaqeeyaa ilaa 3 galabnimo iyo horta arrin kii ugu darnaa arrin si mucjisa ay ugu dhacay buu moogta horta laba nin baa ka kireeyay gaariga xabashiya markaan saldhiga koodbursa uga dhacay ay laba askari joojiyeen wala total la sigaarsi halka fikta total waay hooyagana soo furan ku war markaan dalcada marayo ay labadii nin xabashidii iska dageen soo taas oo yiri ku jirto khamriistan anu warma hayo aga biyuman moodaydan markay siteen halka kursiga hoosteeda iska soo riixiro askarta markay soo fuleen arkeen bay halka isu xululiyo kursiga hoosteeda way iska dageen halka markaan dalcada marne ay iyagu dageen naagana joogo lacagteedii way siiyay way dageen sidaadaan u dhaqaaqo gaariga dalcada soo fulay aga diirid cararto labada askari waa ka dhacday way qaateen askartii furka ka fureen way uriyeen anaga daga markaan ku dhan total joogo halkan aan ku eegahay uu bay ku eedan jeedi gaariga baasteriyo waan maxaa dhacay maana ku sheegay saldhiga nage la soo kixay leekan halkii saldhigi waa kuwa soo khamri wistay umme maana khamri wistay waa ma ka waana inay masitaan khamri ninka sheegay madawta waa tan gaariga laga dhaxlay adeestaade وهذا ولي بليغة تاي ما أنا وحول بقى دار ما جرتو وروح نقول حوينا نقول اللي بلاد رحنا اللي بلاد وحنا شغل كل هاي ورنا هرتو دارك ما قبل بيجي قلت كدارو كدارن ما وحنا دارنا ما نقول أسكر تاوتو دارنا أرك أسكر تورتو أسكر تقول أركان أيها كدارنا يا هاكو دارنا هنا غاريا لكن صوت حقائق كدارين وما بعرف كيف ما كنا نقول غاريا حقائق يا كله يا أسكر توم باتوستي تيبان رحنا اللي بلاد نيو dhibaatada ugu badan ee ka soo martay taasay oo ani ciyaalkayga jabnay kala jabnay oo reer kartay gaadnay oo ceebtu iga raacday ilaa imiga aanay iga harin waxaana shaqo shayd ku lahayn oo rasuulka yaarago wallahi ilaa waligiin